iyo dowladda hoose xamar oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kulan sagootin ah oo sharaf ah u sameeyay ismada ka socda dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho. Kulankani sagootinta ayaa waxaa ka qayb galay wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, fanaaniin iyo ururada bulshada rayidka. Madasha ay ka dhaceysay kulankani ayaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan iyo sidoo kale sheekooyin ka turjumaya sida ugu haboon ee loo xoojin karo midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Islaan Ciise, Islaan Maxamed, Islaan Muuse oo ku hadlayay codka ismada Soomaaliyeed ee ka socda dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ku nool sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho maalmihii koobnaa ay ku sugnaayeen. Waxaan kula dardaarmayaa isagoo qof waliba meesha uu ka leeyahay iyo abaarta uu leeyahay iyo miisaanka uu ku fadhiyo aynu u kacno dalkeena iyo dadkeena aynu ka baajino bahalka ama baadida bahalka ama bixidda uu cidlada iyo badaha kale ku dhumayo. Waxaynu kaga gudbi karaa wadajir iyo tala midaysan Soomaalinimo oo la raadsho baan qabi karaa, nabad oo dhalata baan qabi karaa. Waxaan leeyahay marka dadka maanta halkaan fadhiya caawa oo Soomaaliyeed qof walba waxa laga rabaa abaarta uu leeyahay iyo mudnaanta uu leeyahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo kulankani soo xiray ayaa tilmaamay in caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ay tahay magaalo ay wada siman yihiin qof kasta oo ku hadla afka Soomaaliga. Walaalayaal, magaalada Muqdisho oo ah magaaladiinii caasimadii dalka Soomaaliya marar badanna waan sheegay, haddana waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego. Magaalada Muqdisho waa magaalada dadka Soomaaliyeed, dadka ku hadla afka Soomaaliga magaaladoodii. Dadka afka Soomaaliga ku hadla haddii ay dareemaan inta aniga aan magaalada Muqdisho duqeedii ahay wax ay dhibsadaan ama ay dareemaan inayan ula mid ahayn kan meeshaan ku dhashay ama hadda degan, mas-uuliyaddeeda anaa qaadanay. Bulshada ku nool magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an Soomaalida Gaarisa, Soomaalida Jigjiga, Tanjabuuti iyo midda Hargeysaba iyo midda Muqdishoba si isku mid ah inay ula macaamilaan ula dhaqmaan. Taas ayada ah waa naga go'an tahay, waajib ahaanna waan u qaadanay, waana ku sii dhaqmi doonaa haddii aan leedno. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.